الحمد لله taabashada doofaarku waxay ka farac tahay masalada koobaad oo ah najaasadiisa jirkiisa daahirkiisa najaasadiisa haddii uu qallalan yahay dambi ma aha taabashadiisu ujeedooyin badan iyo sabab badanna waa loo taaban karaa laakiin hadduu jirkiisu qoyan yahay oo aad taabato najaaso in la taabto ma bannaan tahay mise ma bannaano bay noqonaysaa khilaafka culimmada ee ka jira raxmatullaahi calayhim jamiican oo haddii aad taabato wuu ku nijaasaynayaa bilaa xaaja walaa daruura nijaaso gacmaha in lala galana lama ogola haddaba tasaan haddaan qaadanno qowlka fuqaha badan oo shaaficiyadu ka mid yihiin qabaan doofaarka jirkiisa kore inuu nijaas yahay hadduu qoyan yahay in la taabto ma bannaana oo najaasada bilaa xaajatin ama daruuro iyadoona jirin loo qasto oo la taabto oo gacmaha lala galo ma bannaana laakiin haddii uu qallalan yahay laa jaafaani waxay yidhaahdaan weeyo laba qallalan isma nijaaseeyaan taabashadiisana wax taxriiminaya oo nasa anigu garan maayo